xilliyada qaar waxa aynu codka ka xirnaa taleefankeena sida xilliga aan ku jirno shaqada, galaaska, kulamada gaarka ah ama xilliga jiifka. balse waxaa macquul ah taleefankeena codka ka xiran in uu inoo soo dhaco taleefan gaar ah ama taleefan muhiim ah. haddaba muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa qaabka ugu fudud ee aad taleefanada gaarka ah codka ugu furi lahayd, weliba taleefankaaga oo ah silent mode ama codka ka xiran. ugu horeyn waxa aynu soo kicinaynaa Play Store-ka. kadib waxaan imaanaynaa qaybta search-ka ama raadinta. waxaan ku qoraynaa application-ka magaciisu uu yahay Priority Contacts. kadib waan ku dhufanaynaa. si anigu uma baahni inaan la soo dego, waayo mar hore ayaan la soo degay. kaliya waxaan leeyahay Open. application-ka waxa uu ku soo kici doonaa interface-kan ama muuqaalkan. haddaba si aan taleefanada gaarka ah uga dhigno kuwa xilli walba inoo soo dhaca, haddii uu taleefankeena codka ka xiran yahay iyo haddii kaleba, waxaan ku dhufanaynaa calaamadda plus-ka ah. kadib waxaan raadin doonaa ama aan ku soo darsan doonaa content-iga ama numberka aan rabno inuu xilli walba inoo soo dhaco. waxaad dul tegi doontaa numberka u baahan tahay inaad furato. kadib waxaad taabanaysaa calaamadda tigta ah. waxaad leedahay done. ugu horeyn waxaan isla aragnaa in taleefankeena uu yahay ama taleefankeyga uu yahay mid codka ka xiran. waxaan soo wici doonaa taleefankeyga. waxaan ka soo wici doonaa numberka aan ugu talagalay in xilli walba uu soo waco. saa arkaysaan taleefankeyga waxa uu ku soo dhacay cod, weliba taleefankeyga oo ah silent mode ama codka ka xiran. waan filayaa inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen kana hesheen. inta aan ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaal ka xiiso badan, waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.